استاد مقدشو هذا وحا قعنت كوهايا دولة قعنت كوهايسا وزاردين دلين سبورتي runtii shaqo badan ay ka qabteen meesha oo ku aadan fikirka ahaa in garoonka wax laga qabto wuxuu ka yimid wasiiradu ka yimid ayadoo kaashanaysa madaxdeeda sare ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba hadda markaa fiiriso shaqada meesha ay marayso booqasho waa ku tagay waa soo fiirinay garoonkana dayactirkiisa hadda waxaa moodaa wax oo muuqda in ay dawladdu ka qabatay wax muuqda runtii laga qabtay annagana hadda waxaan sugaynaa xilliga ay gabagabayn doonaan dayactirka ku socda ka xiriir kubadda ahaan hadda waxaan isku diyaarinaynaa sida garoonkaas oo isticmaali lahayn uguna qaban lahayn wixii loogu talagalay oo ahaa in horyaaladii dalka lagu ciyaaro in ciyaarihii dibadda hadday macquul noo noqoto garoonka lagu ciyaari lahaa waaye in kooxihii ay helaan haddii horyaalka aan shalay ku wadnay hal garoon ama laba garoon saddexda daahirna waxaa micnaha si habsameyn noogu socon doona tartamada xiriirka uu badin lahaa ayaa suurtagal u tahay haddii garoomada bataan tartamada badanaya horyaalkiina wuxuu noqonayaa waqtigii uu socday waqti ka gaaban uu noo socon doonaa haddii horyaalka la dhihi jiray usbuuc 5 maalin waxaa noo soo socota markaas haddaan garoonkaan helno in 3 maalin la dheero 3 maalin labada garoon lagu kala dheero ayadoo markaas nasiinadan kooxa ay fiicnaanayso oo wiigii in fiican ay nasanayso tirada ciyaaraha la dheerayn ee badan doonaan marka garoonka faa'iido badan ku fadhiya waxaan hadda sugeynaa markii ay gacanta laga qaado inaan annaguna u diyaar garowno sidii ciyaaraha ugu abaabul lahayn ama sadaqalina sad muqdisho meel fiican u maraa insha Allah waxaan rajaynaynaa ugu dambeyn January in uu diyaar noqdo guud ahaan booqashadiina kadib baa soo kormeerteen maxaas leedahay waa laga bedelay dawladdu way ka bedeshay wallahi dayactir badan lagu sameeyay oo u badan derbiyada VIB-da wax dhan waa la sameeyay wixii la qaban karay barihi oo dalalka waa la sinjiyay soo guul soo faa wax oo hadda ilaa hadda meel fiican maraysa insha Allah waayahay haddii aad timaha xiriirka aad ku tagteen booqashada maxaa idin soo baxay maxaas qorsheyseen waxaan soo baxay anaga wasaaradda dhallinyarada sportiga ayaa ka shaqeynaysa dawladda annagana gacan farsamaan sii weynaa marka aad u fiican tahay hawshaas waxaan rajaynaynaa xiriirkuna inuu sameeyo labadii garoon oo tababarka dawladduna ay kan samayso sidaasna garoonka isada muqdisho si boqolkiiba boqol hawshiisa ay noqoto insha Allah waayahay dad badan rajaynaya inay arkaan istaadi muqdisho lagu ciyaaray 30 sano kadib xiriirka kale inta la eegayo 2020 gelinaya arrintaas والله haddii la yiraahdo tartamada horyaalka hadda soo socda oo 2020 waxaan rajaynaynaa intiisa badan inuu isada muqdisho lagu ciyaaro haddii la yiraahdo marka maxay tahay haddii aad aragtay baraha bulshada jawaabaha laga soo bixinaya ee dhiirigelinta dhalinyarada u hayaan inay ku daawadaan ciyaaraha istaadi muqdisho wallahi fariin aad u fiican waaye isada muqdisho waa isbedel badan ay imaanaya mar haddii meeshaas la tago garoon aad u qaad weyn waaye garoomada waa ka weyn hadda jira marka waa garoonka ugu dambeeyay oo Soomaaliya dowladda Soomaaliya leedahay marka wax badan iska bedel hadii la yiraahdo sida guud ahaan kubadda cagta Soomaaliya hadda boqolkiiba boqol waa aragtay kor u kacday marka daawada badan helaysa insha Allah waxaan rajaynaynaa in la helo taageero fara badan maxay tahay marka fariinta u direysaan dhalinyarada iyo dadka xiiseeya ciyaaraha ee garoonkaas rajaynaya waxaan rajaynaynaa horyaalka soo socda 2020 inay ku daawadaan horyaalka hadii la yiraahdo